بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما أصحابتكم حرنجنا يوتيوب أقوم كرودسي أوفيشيال إن شاء الله وحنا مسترينا مادة حسابته فصل كسديدات جارهان امتحان كوسارد وحبرشة قبل كبنادر وحن سوق هذا نلا 20 سؤال maanta waxaan ka bilaabaynaa insha Allah su'aasha 12aad su'aasha 12aad waa su'aal qorno saynis ah waxaan jeclahay insha Allah in ardayda ku sugan gobolka Banaadir ama caasimadda Muqdisho ay kala doonaan imtixaanka insha Allah 28ka bisha shanaad 2022 marka waxaan jeclahay inaan dhameystiro xisaabta qaybaha ka dhinay iyo sidoo kale maadooyin kale sida luqadda Ingiriiskaba qaybta koowaad waxaa lagu siiyay in aqoon saynis aanu badashay 300 halkan waxaa ku qoran 3 lagu dhufto 10 ku jibaaran 2 inta waa jibaarkan waa 2 qaybtan kale jibaarkan waa 3 qaybtan jibaarkeedu waa 4 inta jibaarkeeduna waa 5 marka caadi ahaan si meesha u qoran tahay qaybtan waa jibaari u taagan tahay marka su'aashan jawaabteedu way iska cadahay sababtoo ah haddii lagu siiyo 300 saddexda boqol lagu siina jibaar ahaanteeda marka waxay noqonaysaa saddex soo qaado lagu dhuftay leedahay 10 sharciga ahaa oo qormasaynis loo qaadanayay saddexda waxa dhanka midigta ka jira 2 eber labada eberna ku badalo 2 tiro waxay noqotay 10 saddex lagu dhufto 10 ku jibaaran 2 waa xarafka P ayaa jawaabteeda saxda ah su'aasha 21 waxaan gudbiyaa su'aasha 22 su'aasha 22 waxaan la weydiiyay laba xa lagu daray 6 oo lagu daray 4 xa lagu daray 4 xa laga tiray 4 xa laga tiray 2 marka su'aashan way fududahay hadii qaabkan ku xalino inta waxaan haystaa 2 xa inta waxaan haystaa 4 xa labadan tir isku dar waxa ka soo bixi doonta 6 xa sidoo kale waxaan sameynayaa 6kan waxa wataa plus 2 waxa wataa minus labadan tir kala jar inta waxa ka soo baxaya plus 4 marka waa 6x plus 4 jawaabteedu waa xarafka t ayaa sax ama ta oo ah 6x plus 4 su'aasha kale waa su'aal kale oo qormo saynis ah waxaana la siiyay 0.0035 maadaama su'aashan aan haysto 0.035 waxaan sameynayaa halkan waa 0 boontigan soo dhaqaajay 1 2 3 halkan ayuu galayaa boontiga kadibna waxay noqonaysaa su'aasha 3.5 times 10 meeqan soo dhaqaajiyay ilaa 3 qaybood ah maadaama dhankan u soo wado waxa leedahay -3 waa 3.5 -3 jawaabta saxda ah waa xarafka xa ayaa sax oo ah 3.5 times 10 power -3 qaybahan kale waa qalad su'aasha 24 6 plus 2 lagu daray 3 waa su'aal qudar caadi ah labaantir isku dar waxa ka soo bixi doonta 6 lagu daray labaantir isku dar waxa ka soo baxaya 5 lagu daray 6 waa 11 xarafka ja ayaa sax ah oo 11 waxaan gudbiyaa su'aasha kale oo 25aad waxaan haysanaa hooseeyo isku mid ah sareeyahana inta waa 5 inta hala u qarsan labada kor kala jar hooseeyo ka soo qaado hadii la kala jar inta waxa ka soo baxaya 6 ku jibaaran waa 4 ku jibaaran waa ya ku jibaaran 4 ya ku jibaaran 4 waa xarafka ja ayaa sax ah su'aasha 26aad fududeynta 2 ku jibaaran 5 oo lagu dhuftay 2 ku jibaaran 3 marka su'aashan waxay noqonaysaa hooseeyahan waa 2 halka soo qaado labada korayna isku dar inta waxa ka soo bixaysa 8 marka waxay noqotay 2 ku jibaaran 8 oo su'aasha xarafka ah su'aasha 27aad aragtida Pythagoras waxa ay ka hadlaysaa xiriirka ka dhaxeeya dhinacyada 3 xagal quman 3 xagal fiiqan 3 xagal daacsan 3 xagal is dhameystira marka jawaabta saxda waa xarafka ba oo ah 3 xagal quman ay ka hadashaa su'aasha 28aad ayaan gudbiyaa barbartameedka xariijinta ay labadeeda barbardhamaad ay yihiin 6.2 iyo 4.2 jawaabteedu waxay noqonaysaa marka la raadina barbardhamaadka waxaa lagu heli jiray waxay tahay 6.2 ayaan qaybtan haystaa qaybtan hoosena waxaan haystaa 4.2 marka saan u soo helo barbardhamaadka waxaan sameeynaa labadan tir isku dar labadan kalena isku dar isku darka labadan tiro waxa ka soo baxay meeshan qaybtan waxaan haystaa 6 iyo 4 waxa leedahay waa 6 lagu daray 4 oo loo qaybiyay inta waxaan qaybinayaa 2 qaybtan kalena waxaan haystaa 2 times 2 2 ku dar waxay noqonaysaa 2 lagu daray 2 oo loo qaybiyay waxa u qaybsan si la mid ah 2
labaanta isku dar waa 10 10 laba u qayb inta waxa ka soo baxay 5 labaanta isku dar waa 4 4 laba u qayb inta waxa ka soo baxay 2 marka waxay noqotay 5.2 jawaabta saxda ah 5.2 na waa xarafka waa xarafka ba ayaa sax ah jawaabta oo ah 5.2 su'aasha 29aad jooga sajabeke dhirirkiisu uu yahay 5 cm badkiisuna uu yahay 104 cm waa 2 cm 3 cm 4 cm iyo 5 cm marka su'aashan jawaabteeda ah way iska cadahay oo waa 5 cm su'aasha doonaadna waxay tahay marka aan fuudeynayno laba tibxaalaha xa laga jaray 5 oo laba jibaaran waxa inoo soo bixi doonto marka laba jibaaran marka laga shaqeynayo tiradani qaybtan waxay ahayd tan oo la mar la furfuray qaybtan waxa ka soo bixi doonto x laba jibaaran oo laga jaray 10x oo lagu daray 25 marka xarafka saxda ah waa xarafka b ayaa jawaabteeda sax noqonaysa sababtoo ah tan waxa loo furfuray waxay tahay x laga jaray 5 oo lagu dhuftay x laga jaray 5 qaabkaas ay u furfurnaysay marka x lagu dhufanayo waxa ka soo bixaysay x laba jibaaran su'aasha 30aad inaan fahanteen waan filayaa waxaan u gudbiyaa su'aasha 31aad